السلام عليكم. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno anterior pituitary hormones. Okay, wuxuu ahaay cashiradii aan qabyada ugu tagnay aan rabnay inaan dhamaystiro. So waxaan soo koobnay hadda marka anterior pituitary glandiga hormoneska laga soo deeyo oo aan soo sheegnay inay ahaayeen 6 hormoon. Okay, 6daas hormoon ayaa waxaan kusoo koobnay ujeedin. Marka waxaan rabnaa marka inaan ka hadalno 6daas hormoon iyo functionkooda iyo waxyaabaha ay qabtaan iyo meelaha ay ka shaqeeyaan inaan ogaano. So waxaan ka bilaabi doonaa marka saa ujeedin. Waxaa noogu horeeyo hormoonka koowaad waa prolactin, midka labaad waa ACTH adrenocorticotropic hormone oo laga soo gaabiyey. Kana ujeedin waxaa waa thyroid stimulating hormone oo loo soo gaabiyey TSH. Kana waa follicular stimulating hormone oo loo soo gaabiyey FSH. Kana waa luteinizing hormone oo laga soo gaabiyey LH. Kaasna waa growth hormone oo aan naqaan. So waxaan rabnaa marka mid kasta inaan ogaano meelaha ay ka shaqeeyaan. Haddaan ku hormarno hadda prolactin. Prolactin wuxuu ka mid ahaa anterior pituitary hormoneska. So prolactin muxuu qabtaa asiga? Prolactin asiga wuxuu ka shaqeeyaa in the breastiga. Macnihiisa marka dhigana breastiga wax kale ma ahan. Macnihiisa wuxuu qabtaa asiga milk production. Okay, function of prolactin maxaa waaye? Function of prolactin waxaa waaye waa milk production. Milk production macnihiisa maxaa waaye? wuxuu sameeyaa caanaha ayuu sameeyaa marka. Okay, caanaha midka sameeyo waxaa loo yaqaanaa marka milk production. Milk production yaa waaye marka waa prolactin. So haddaa aragtid marka prolactin waa inaad ogaataa inuu yahay midka sameynaya caanaha, midka sameynaya inuu yahay. Okay, sidoo kale asiga waxaa ka qayb qaataa inuu soo deeyo milk production and secretion. sidoo kale shaqadiisu waxaa waaye secretion. Okay, inuu soo deeyo markii la sameeyo uu soo deeyo doonaa marka secretion. Okay, so waa fahanay hadda prolactinka marka. Prolactinka intuu milk production markii la sameeyo waa ujeedin this is the breastiga. So caanaha waxay imaan doonaan marka yaa soo tuuri doona marka caanaha. Caanaha waxaa lagu sameyn doonaa ejection lagu sameyn doonaa. Yaa ku sameynaya marka ejection caanaha in la soo tuuro? Oxytocin. Okay, waan ka hadli doonaa insha Allah. Next lecture ayuu noo soo socdaa. Oxytocinka shaqooyinka uu qabto ayay ku jirtaa. So caanaha in la soo tuuro markii cunuga oo second samee oo nuugitaanka uu bilaabo, caanaha in la soo tuuro yaa ka qayb qaadanaya oxytocinka. laakiin caanaha in la sameeyo iyo in la soo daayo yaa shaqo ku leh prolactin ayaa shaqo ku leh. waa fahanay. ACTH hadda u imaano marka adrenocorticotropic hormone. What is the function of adrenocorticotropic hormone? asiga shaqada u muhiimsan wuxuu ka qabtaa in the adrenal gland. Okay, this is waxa ka wadnaa adrenal glandiga. Adrenal glandiga asiga laba qayb u kala qaadnay, qayb cortex ah iyo qayb medulla ah. qaybta medullaha waxay soo saartaa inta badan catecholaminiska sida epinephrine, norepinephrine iyo dopamine. laakiin qaybtan oo cortexka waxay soo saartaa ayada 3 qayb ah. mineralocorticoid qayb soo saarto oo aldosterone, qayb soo saarto glucocorticoid. So adiga functionkiisa da soo koobnay ACTH waxa waaye wuxuu sameeyaa in la soo saaro production of glucocorticoid ayuu ka qayb qaataa. Okay, wuxuu imaan doonaa in this area wuxuu ka qaadi doonaa marka glucocorticoid in la soo saaro. iyo sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa metabolismka jirka inuu badiyo. Okay, so shaqada uu ACTH ka noo qabto maxaa marka production of glucocorticoid ka shaqadeeda maxaa marka glucocorticoid ka ay ka qayb qaataa waxyaabo badan. So ay sidoo kale waxa kamid shaqooyinkeeda waa immunosuppressive ayada. Okay, sidoo kale waa anti allergic ayada. sidoo kale shaqooyin badan ay qabtaan on metabolismka, on proteinka markii la joogo carbohydrate-ka. Okay, so marka ACTH wuxuu ka shaqeeyaa in glucocorticoid-ka waxay soo deeyaan waxa la yiraahdo cortisol iyo cortisone. hore u soo aragnay waa garan. TSH hadda u imaano. TSH functionkiisa maxaa waaye? TSH maxaa laga soo gaabiyey? waxaa loo soo gaabiyey thyroid stimulating hormone. Okay, waa fahmi kartiin. This is the thyroid-ka. So asiga wuxuu imaan doonaa in thyroid gland ayuu imaan doonaa. Okay, this sawirkan waxaa ka wadnaa thyroid gland. asiga wuxuu imaan doonaa TSH thyroid gland ayuu imaan doonaa. Thyroid gland ayuu activation ku sameyn doonaa. thyroid gland markuu activation ku sameeyo wuxuu ku amri doonaa thyroid inay soo saaraan waxa la yiraahdo T3 iyo T4. Okay, T3 iyo T4 marka way soo bixi doonaan, waxay ka falgali doonaan ama ay ka shaqeyn doonaan jirka ay ka shaqeyn doonaan. So ayagana waxay ka qayb qaataan in ay ka shaqeeyaan waxa la yiraahdaa metabolic of the activity of the body ay ka qayb qaataan. Okay, shaqooyinkooda T3 iyo T4 cashir gooni ayaan ku arkaynaa. laakiin hadda muhiimadeena waxa waaye TSH ka markii laga soo saaro anterior pituitary gland wuxuu imaan doonaa in the thyroid gland. Thyroid gland markuu imaado wuxuu amar sii doonaa
in la sameeyo thyroid hormones in la sameeyo. So thyroid hormones yaa T3 T4 T3 T4 ayaa lagu sameyn doonaa thyroid glandiga, then T3 T4 ayagoo ordaya ay soo bixi doonaan shaqooyin waxay qaban doonaan oo jirka ay ka qaban doonaan. marka shaqooyinkooda maxaa waaye inay ka qayb qaataan metabolic activity of the body, jirka shaqooyinka jirka inay badiyaan ay ka qayb qaataan. Okay, that's the thyroid stimulating hormone. Awaan marka follicular stimulating hormone. What is the function of follicular stimulating hormone? Follicular stimulating hormone waxaa la yiraahdaa asiga markii laga hadlayo qaangaarka oo ovumka markii laga hadlayo xaaladooyin ay soo maraan. So inuu bilaabmo primordial follicle inuu noqdo Gravian follicle-ka waxaa shaqo ku leh hormonal ayaa shaqo ku leh. So hormoonka marka amro primary follicle inay bilaabmadaan, okay, inay bilaabmadaan waxaan samaysankooda bil kasta way bilaabmadaan sax. So inay bilaabmadaan marka shaqada ay bilaabmaan waxaa shaqo ku leh marka follicular stimulating hormone. So follicular stimulating hormone shaqadiisu waxaa waaye primary follicle-ka inuu activation ku sameeyo. Primary follicle marka waxay bilaabi doontaa in ay soo baxaan ugxaamo inay soo baxaan. waxay bilaabi doonaan marka inay tartan sameeyaan. Okay, midkii hadhow guuleysto ayaa wuxuu noqon doonaa marka ovumka oo la falgali doona spermaha. So follicular stimulating hormone ayaa meesha ka shaqeysa marka follicular stimulating hormone shaqadeedu maxaa waaye inay in female marka ka hadlayno. Okay, in female marka ka hadlayno shaqadeedu waxaa waaye inay primary follicle ay u bedesho Gravian follicle. Okay, ay ka qayb qaadataa. Okay, and this is the ujeedin Gravian follicle ka marka. Okay, this Gravian follicle sidoo kale ayda waxay ka qayb qaataan FSH-ka in la soo daayo maxaa la yiraahdaa estrogen in la soo daayo. Okay, waxaa jiro thick granulones ayaa jiro in the Gravian follicle-ka. thick granulones marka waxay ku amriyay FSH-ka inay soo daayaan estrogen. Okay, estrogen-ka iyo function-kiisa waa naqana. Okay, in male marka waxa la FSH-ka waxa la waxay ka qayb qaadataa testosterone formation of testosterone in la sameeyo ay ka qayb qaadataa. Okay, hadaba maana marka LH-ka hadaba maana LH-ka asiga in male iyo female ayuu kala qaadina. Okay, in male markii ka hadlayno wuxuu sameeyaa formation of wuxuu ka qayb qaataa testosterone spermatogenesis. Okay, waxaan ka wadnaa spermatogenesis ayuu ka qayb qaataa. waa soo aragnay sababta uu qayb qaadanayo spermatogenesis ayuu ka qayb qaataa. Okay, spermatogenesis macnihiisu waxa in la sameeyo sperm in la sameeyo waxa loo yaqaan spermatogenesis-ka. So process-ka marka spermatogenesis uu dhacayo ayuu ka qayb qaataa marka. waa soo aragnay marka cashirkii aan ku soo qaadanaynay spermatogenesis-ka LH-ka faa'iidadiisa in male-ka waa soo aragnay. in female-ka asiga shaqadiisa maxaa waaye in female-ka waxa la yiraahdaa asiga intuu badan wuxuu ka qayb qaataa ovulation ayuu ka qayb qaataa ovulation-ka ayuu ka qayb qaataa. Okay, ovulation-ka macnihiisu waxa waaye ovulation-ka waxa macnaha markii ay qaangaaraan ugxaanta ee Gravian follicle-ka ay ka soo baxaan ay qaraxdo oo Gravian follicle-ka waxay soo galayaan fallopian tube-ka. So fallopian tube-ka markay soo galayaan this is the marka ovulation-kaas markuu dhacayo LH-ka ayaa marka shaqeey doono. Okay, LH-ka ayaa bada doono wuxuu ka qayb qaadanaa marka inay dhacdo ovulation markaas inuu dhaco oo ovumka ka soo tago meesha uu imaado fallopian tube-ka ayuu ka qayb qaadanaa marka. Okay, so ovulation-ka in female wuxuu ka qayb qaataa LH-ka evolution-ka, male wuxuu ka qayb qaataa spermatogenesis-ka. The last one hadaba waa growth hormone. waa growth hormone marka maqshid waxa kugu soo dhacayo waa wuxuu ka qayb qaataa growth-ka sax. Okay, growth macnihiisu waxa koritaan marka waa hormoonka ka qayb qaato qofka inuu koritaan sameeyo. Okay, marka adiga waxa rabtaa qofka markuu rabo inuu koritaan sameeyo ama uu koritaan sameynayo cunuga markuu yar yahay ilaa uu ka weynaanayo waxaas dhan ayaa shaqo leh growth hormone. Okay, qofka marka wuxuu ka qayb qaadanaa inuu growth hormone-kaas hadduu marka qofka uu ku dhaco marka growth hormone-ka haddii uu laga waayo qofka ilmaha kale growth hormone hadduusan uu ku dhaco eber u noqdo waxaa ku imaanaya ilmaha wax la yiraahdo dwarfism. So dwarfism macnihiisu waxa ilmihii waa gagaabanayaan. Okay, cunuga waxa ilmihii waxa arkay ayaga dhan koritaan ma sameynayaan. Okay, ilmihii aad ay weer yihiin marka. So waxa dhinaca marka dwarfism waa sidoo kale waxa dhici karta marka qaarkood hyper secretion inuu bato growth hormone qofka inuu ku bato waxa loo yaqaan gigantism. macnihiisu maxaa marka macnihiisu waxa waaye growth hormone-kii ayaa xaddigii la rumaanay xaddigii ka sii batay. So qofka waxa ku imaanaya marka gigantism qofkii asidan inuu weynaado maxaa la yiraahdaa barro ay noqonayaan marka. Okay, so growth hormone marka sidoo kale
markii laga soo daayo anterior hormoonka wuxuu imaadaa asiga liverka ayuu imaadaa. So liverka markuu imaado asiga waxaa jirta wuxuu isku bedeli karaa asiga laba mid uu sameyn karaa. Growth hormone tissue toos ayuu tagi karaa, tissue ayuu ku shaqeyn karaa, ama liverka uu tagaa. liverka markuu tago waxaa loo bedelaa waxa la yiraahdo somatomedin waxa la yiraahdo. Okay, somatomedinta marka ayada waxay qabanayaan marka shaqadii growth hormone uu qaban lahay ayada qabanaysa marka. Okay, marka waxa waay growth hormone ka ku shaqeysta macnaha growth hormone kii ku shaqeysta somatomedinkana ku shaqeysana wuxuu imaanaa liverka somatomedinkii uu ku shaqeysana marka shaqadiisa ay qabanayaan marka somatomedin shaqada growth hormone ay qabanayaan. So let's recap it ama let's answer calculation ku sameeyno. Prolactin waxa dhaanay waa hormoonka lagu wuxuu ka mid yahay anteriorka wuxuu ka qayb qaataa milky production and secretion. Okay, haddaba maana marka ACTH waxa dhaanay wuxuu ka shaqeeyaa in the adrenal cortex-ka qaasatan wuxuu sameeyaa production glucocorticoid-ka. macnihiisu waxaan ka wadnaa wuxuu badiyaa cortisolka iyo cortisonka. Okay, markii waxay ka qayb qaadanayaan marka metabolism jirka inuu bato. ACTH sidoo kale waxay ka qayb qaadanayaan maxaa la yiraahdaa in immunosuppression ay sameynayaan, sidoo kale waxay sameynayaan anti allergic. Okay, shaqadooda waay. So TSH marka haddaba maana asigana muxuu sameeyaa? TSH waa hormoonka oo lagu ka mid yahay anteriorka. Saa u jeedin waxay ka yimaadeen hypothalamus ay ka yimaadeen. This area dhan waa hypothalamus. This is the hypothalamus. This is the anterior pituitary. This is the posterior pituitary. Okay. So markii laga soo daayo anterior pituitary gland TSH markii laga soo daayo waxay imaan doonaa thyroid gland waa kana. Thyroid gland inta ku yaala imaan doonaa wuxuu dhihi doonaa la soo daayo T3T4 ayaa la soo daayo doonaa ayaa la sameyn doonaa kadib waa la soo daayo doonaa in waxay ka shaqeynayaan jirka ay ka shaqeynayaan. FSH-ka waxa dhaanay in male iyo female u kala qaadnay. Male-ka spermatogenesis-ka ay ka qayb qaataa sidoo kale in female waxa dhaanay wuxuu sameeyaa primary follicle-ka. Okay, markuu rabo inuu noqdo qaangaar Graafian follicle-ka process-kaas waxaa controlo FSH ayaa controlo خلاص. LH-ka umaano in male wuxuu qabtaa spermatogenesis, in female wuxuu ka qayb qaataa sperma in la sameeyo, in female wuxuu sameeyaa ovulation oo inay qaraxdo bahashas ayuu ka qayb qaataa. marka insha Allah waxaa ku qaadan doonaa embryology. Growth hormone waxa dhaanay waa kuwa ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay. asiga waxaan dhaanay maxaa la yiraahdaa waxaa laga soo daayaa anteriorka ayuu ka mid yahay. liverka ayuu imaan karaa. markuu imaado waxaa loo bedelaa somatomedinkaas ayaa sida growth hormone u shaqeynayso. mise wuxuu soo bixi doonaa wuxuu imaan doonaa maxaa la yiraahdaa tissue ayaa toos u shaqeyn doonaa. waxaa dhan hadduu qofku ku yiraahdo ilmaha waxaa dhayna waxay ku dhacay dwarfism inay gagaabtaan. haddii uu ku batana waxaa dhayna dadka waaweyn waxaan ku arkaynaa gigantism oo ah qofkii inuu ku batay growth hormone inuu bararo in maxaa la yiraahdaa isbedel uu ku dhaco. Okay, so halaas ayaan kusoo gabaynaynaa maanta anterior pituitary hormoneska. waxaan maleynaa intuu badna waa dhameynay hal cashiro posterior hormones ayaa noo dhiman oo oxytocinkas ayaa hal cashiro nooga dhiman. inshallah next lecture oxytocin ayaa dhamey doonaa, then it will be the end of the pituitary hormoneska oo pituitary gland waa dhameynay. toos waxaa u gali doonaa inshallah thyroidka iyo pancreaska oo Ehlers Langerhansiga iyo adrenal glandiga iyo inshallah iyo adrenal medulla. So thank you so much. Bye bye.